waxa ay reer Somaliland qabteen waxay dhaawac weyn ku tahay haddaad runta rabtaan oo ka leexleexanaysaan waa dadka dawladda Villa Soomaaliya fadhisay dhaawac weyn ku tahay miday ka soo kabsanaysana u malayn ma inay noqonayso runta nabar culus aysan ka soo kaban doonin sanadahani ayaa soo gaaray maamulka Xasan Sheekh waa kuwana farxadkoodii tiimkii iyo wasaaradii u qaabilsay Xasan Sheekh maamulka hawada xala saacadii dambe waxay u daateen safaaradda ku leedahay Jaalaa Muqdisho jeenayskana markii hore waxay ahayd baacidda dhiiqada Ingiriisay maamulka Xasan Sheekh waxay ka dalbadeen tiimkan xal u tagay safaaraddaasi inay la soo gaaraan gurmad degdeg ah oo dhig joojin ah isnad easy Somaliland warkastaba ay u sii dhawaadaan jeenaha maamulka Soomaaliya iyo tiimka Xasanba waxay u tahay Somaliland fursad dahabi ah maantana dadka reer Somaliland libin ay ku faani karaan waxa uu ah Soomaalida sheeganaysa inay taawada la aqoonsan yahay inay ka hoos gashay jeenaha oo ay ka dalbanayso taageero si ay waxay noo dhiman dacwooyinka ka badan ee Soomaaliya ku soo socda oo ah diyaaradahaas leexday in lagu soo dalici doono shidaalkii dhaqaalihii ku baxay because of that straight 2024 waa dacwo noo soo waxaan xukuumad ahaan joojinay qabashadii xafladii la doonayay lagu qabto caasimadda Selen iyo kuwa kale la midka ah waxay ka bilaab soo saan uma bilaabin saa u bilaabay ugu dhaqso saabiriin cadaalad bay rabtaa ilaahayna waa lagu fiirsanayaa adigana alla waa kugu fiirsanayaa 14 sano iyo 8 bilood bay jidhaa aabaheena 13 sano mootay hooyadeena 2 sano ay jidha markay dhimatay bismillaah saaxiib yal ku soo dhawaada maal faro anagana waliban maxamed aadan oo ku bilaabo mowduucana caawi ninka odaga haashid qaybi maalmii dambe wuxuu ku sugnaa Hargeysa halkaas oo kala xirneed ka hor intuu Sulaymaan waxaa jirta wareysi uu bixiyo ku sheegay sanad ka hor isagoo taariib ku yimid ama ku soo galaba Hargeysa in lagu xiray wajaale malaha sida ka muuqata hadalkiisa barigaasi Sadiiq Oromaahan ayaa loo soo tarxiilay waxay ahaataba doorkan Sadiiq si qurux badan ayaa lagu soo dhaweeyay Hargeysa waan laga xaal mariyay barigaas uu sheegay in laga soo tarxiilay maalmihii dambe intuu ku sugnaa Hargeysa Sadiiq waxaa jirta hadal ka soo yeeray oo hadalhayn badan ka abuuray social media hadalkana waxa uu ahaa mar uu wareysi bixinay Sadiiq waxa uu sheegay Hargeysa inay ku nool yihiin Soomaali weyn aan maqli jiray oo ah waa dad cuqdadaysan iyo waxaas waxba kama jiraan Soomaali mid kale waxaan moodayay meesha in dhowr reer joogaan Soomaali weyn baba joogtaba marka waa ku faraxsanahay inaan Hargeysa imaado sida maqlaysaan baan kana odaga laba eray uu israaciyay cuqdadaysan iyo Soomaali weyn Soomaali weynta u soo noqon doonaaye waxa muhiim ah in la fahmo cuqdada ninkan uu sheegay wuxuu la jeedaa cuqdadaasi ninkani in dadka reer Somaliland ayuhda ka tashadeen Soomaaliya 60 la midoobeen ay kala soo noqdeen masiirkooda midaas haduu yaqaan cuqdad uu qaldan yahay 60 dadka reer Somaliland ayagoo ay jiray cid qasbaysa ay la midoobeen Soomaalida Talyaaniga ayagoo ujeedkoodu yahay waa dadka reer Somaliland inay isku baadi goobaan 5 gobol Soomaaliyeed 90 ayaga go'aan ku gaaray dadka reer Somaliland in ay masiirkooda ay ka tashadaan ayna sameystaan Somaliland tan maanta quruxda badan dadka si cuqdadaysan waa dadka ilaa hadda ka xajiimoonaya horumarka yarka ka hana qaaday Somaliland midaasi mid labaad wuxuu la jeedaa ninkan cuqdada uu sheegayo reer Somaliland gaar ahaan beesha isaaq oo ahba cid hadalkiisa ku socoto inay xasuusiyeen dhibaatada u geystay rejiimkii Siyaad Barre taa lafteeda ma ahan cuqdad doqonta ilooda shalay wixii loo geystay reer Sheekh Isxaaq hadii ay ku jira lahayd cuqdad wixii ka argoosan lahaayeen dadkii la socday ama la haybtaha rejiimkii Siyaad Barre mana jirto ilaa hadda meel ay uga argoosteen bedelka argoosigaasna waxay fidiyeen cafis 30 sano kadib cafiskaas ay fidiyeen reer Sheekh Isxaaq iyo rejiimkii Siyaad Barre ayagaaba dhibana u ahaba colaadana hadda ku socota qayb ay ka tahay rejiimkii Siyaad Barre iyo cafiska ay fidiyeen ayagoo lagu cilaadanay beesha Isaaq inay rideen rejiimkii macaanka gahay Siyaad Barre ayaa iyagana waxa la doonayaa beesha Isaaq in laga rido ama laga dhibaateeyo Somaliland tan ay dhisteen haddaba uu soo laabtay Soomaaliyiintu ka dhawaajiyay Sadiiq isagoo ku sugan Hargeysa hadalhaynta badan ka abuurtay social media ay ku xiriirto Soomaalida horta dadka intiisa badan si qaldan ay u fahmeen Soomaaliyiintu lagu sheegay maahan Soomaaliyiintu waa shantii Soomaaliyeed oo qayb ka tahay Somaliland xidigta hadda dhexda kaga taala calanka Somaliland wuxuu taagan tahay shantii Soomaaliyeed Hargeysa Jigjiga Djibouti Garissa iyo Muqdisho waana shantii Soomaaliyeed 60 ay baadi goobayeen dadka reer Somaliland wayna ku fashilmeen taana waxa sabab u ahaa fashilkaasi Soomaalida Talyaaniga ee Muqdisho inay sadacad ka ahaynba in la isku baadi goobo shantii Soomaaliyeed taasi la fahmo ayaa muhiim ah cidda maanta doonaysa in la mideeyo shantii Soomaaliyeed ayaga u taala dadka reer Somaliland midaasi dhankooda
way ka soo dhamaatay waxay dhaheen Soomaali weyn maxaa u soo qaaday meesha Soomaali weyn waa ka mamnuuc dee anuu jigjiga joogay yaan fikradahayga aan qarsanin hargeysana way ka sii dimuqraadisan tahayba inaad la socotiin kala mooyaane anagoo jigjiga joogna yaan dhahnaa ogaadeen yaa xorowdo oo Itoobiya waa gashay marka dad idinku qudin wadan dimuqraadi ah tihiin inuu qofku siyaasad ka hadlo iyo inuu fikirkiisa caadiga iyo isagu wuxuu aaminsan yahay uu cabiro way kala duwan tahay dadka shacabka aan ka sii guddo qodobkan xukuumadda Soomaaliland gabi ahaanba waxay mamnuucday munaasabadii xirciise oo loo balansanaa 11 bisha November in lagu soo bandhigo ama lagu qabto degmada Seelac wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo maanta hadlay waxa uu sheegay munaasabadaas inuu joojiyeen arrimo amni awgiisa waxaanu guda galay xaaladda amniga oo aad ugu muhiimsan ee qarankeena markaanu wada tashi badan samaynay markaanu baaris badan samaynay markaanu dadka deegaanka la tashanay markaanu waxgaradka la tashanay markaanu dhalinyarada wax weydiinay waxaanu go'aaminay xukuumad ahaan go'aanka soo socda waxaanu xukuumad ahaan joojinay qabashadii xafladii la doonayay lagu qabto caasimadda Selen iyo kuwa kale la midkaada oo qodobka koobaad qodobka labaad go'aanka xukuumaddu soo saartay muu ahayn mid lagu raali gelinayo beel mana ahayn mid lagu fogeynayo beel kale waxaan u raacnay nabadgelyada xasiloonida iyo qarannimada Soomaaliland qodobka saddexaad waxaanu digniin u diraynaa cid kasta oo ku kacda falo lagu kala qaybinayo bulshada walaalaha ah ee nabadgelyada ku wada nool labada gobol Selel iyo Awdal go'aanka ay ku joojisay xukuumadda munaasabadan xirciise inkastoo ay sheegtay baaritaan inay ku haysay haddana waxay ahayd xukuumadda go'aankani inay mar hore qaadataba laba sababoodba midda koowaad xeerkan ciise maba quseeyo Soomaaliland sida isagaba ku cad marka labaadna buugga laga qoray xeerkaasi in la doonayo qayb ka mid ah dhulka Soomaaliland in lagu soo bandhigo maba ku xusunaba Soomaaliland beddelkii Soomaaliland waxaa la gashaday Soomaaliya marka sidaa daraadeed buuggaasi iyo xeerkaasba laba mar qatar ayuu ku ahaa Soomaaliland marka koowaad buuggaasi iyo xeerkan ciisaba wuxuu qatar ku ahaa amniga Soomaaliland oo waxa ku muransanaa bandhigiisa laba beelood deegaan u ah goobta la qorsheeyay in lagu soo bandhigo marka labaadna buuggaas wuxuu qatar ku ahaa jiritaanka Soomaaliland marka sidaa daraadeed xukuumaddu ma waahaynba inay ka fakarto in buuggaasi ay mamnuucdo iyo in ay fasaxdo ama go'aan kale oo la joojinayo xeerkaygaas go'aankii shalay lagaga dhawaaqay guriga xiisaha lagama taliyo haddii shalay lahaa jigjiga ama dirdhaba loogama taliyo annaga waxaa nooga taliya ugaaska wuxuu noo fadhiyaa gurigiisuna waxa weeye waa dirdhaba go'aan soo saaran oo ku raacsannahay aan ka sii guddo qodobkaani maamulka xasan laba guul darro oo isugu darsatay guuldaradii fiisaha nidaamkii fiisaha muddoonka dambe lagu dhibaateynaya dadka reer Soomaaliland waa la jabsaday cidda jabsatay iyo sababta loo jabsado iska caddahay nidaamkaasna hadda uu soo afjarmay una fashilmay midda labaadna maamulka xasan waxaa looga adkaaday loolankii hawada sare saddexda cisho ugu dambeysay hawada Soomaaliland iyo tii Soomaaliyaba waxaa hagaysay ama waxa laga hagayaba systemka Hargeysa systemka fadhiya Muqdisho wuxuu ka ahaa saddexda cisho ugu dambeysay daawadayaal nabar culus aysan ka soo kaban doonin sanadahani ayaa soo gaaray maamulka Xasan Sheekh waa kuwana farxadkoodii tiimkii iyo wasaaradii u qaabilsan Xasan Sheekh maamulka hawada xala saacadii dambe waxay u daateen safaaradda ku leedahay Jeelaan Muqdisho Jeeneskana markii hore waxay ahayd baacidda dhiqada Ingiriisay maamulka Xasan Sheekh waxay ka dalbadeen tiimkan xal u tagay safaaraddaasi inay la soo gaaraan gurmad degdeg ah oo dhig joojin ah isnad easy Somaliland warkastaba ay u sii dhawaadaan Jeenaha maamulka Soomaaliya iyo tiimka Xasanba waxay u tahay Somaliland fursad dahabi ah maantana dadka reer Somaliland libin ay ku faani karaan waxa uu ah Soomaalida sheeganaysa inay taawada la aqoonsan yahay inay ka hoos gashay Jeenaha oo ay ka dalbanayso taageero si ay isaga difaacdo Somaliland Soomaali way og tahay adduunkana wuu og yahay sida u maamusho Somaliland dhulkeeda ayna u maamushaa badeeda iyo hawadeeda Xasan Sheekh awood u lahayn inuu maamulo afgooy inuu yiraahdo waxaan ku maamulayaa Somaliland hawadeeda waa wax lagu qoslo waxaan la mid tahay sheekadiisa Xasan Sheekh sheekadii ahayd waan soo weynee aan orodno dagaal kasto Xasan Sheekh isku dayo inuu la galo Somaliland cidda qasaaraha u badan ka soo gaaraysa waa isaga transitionka markii la soo bandhigo la yiri 3 years and a half Soomaaliya hawadeeda si fuliya ee loo geeyo markii heshiisyada soo dhaceen
wasiir qorsheel iyo nin xildhibaan oo dhuubo la yiraahdo annagoo material joognaan ka wada hadalnay aan la joogay waxaan ku yiri 3 years and half iska dhaafay 6 years Soomaaliya ha kulama wareegi karto because we are not ready for it su'aal buu weydiiyey qorsheel maanta waa nool yahay wuxuu yiri why waxaan ku yiri marka aad airspace-ka la wareegayso macnaheedu waxa waaye waa inaad dalka oo dhan maamusho airspace-kaagu waa inay amarka aad ka bixiso meesha aad wax ka maamulayso cirifka u dambeeya waa inuu ka socon karaa haddii aanu ka socon karin macnaheedu waxa waaye airspace ma liidado awana waxaan rabaa inaan aad u support gareeyo sida ay ugu dhisan tahay territory-ga maamulkiisu inay waajib tahay meesha aad maamusho hawadeeda inaad xukumi karto kaliya waxaadan maamulin aadan hawadeeda xukumi karin waa sheegan kartaa laakiin waa lagu dhiiban karaa hadda matalan Djibouti ayada iskala hawadeeda laakiin waxay u dhaligeed garaysay airspace-keeda inay maamusho Ethiopia that one is acceptable laakiin meel aadan maamulin haddii one single interference uu ka dhaco adiguna aad sheegashadeeda ku qaadatay mas'uuliyaddeedu qaadatay consequence bay leedahay consequence-geedu will go so different steps ay maraysaa oo kala duwan and the last is haddii aan heshiis lagu gaaraynin kaa la noqotaa qayb ka ah in contingency la saaraa qayb ka ah in partition laga dhigo dalalka dariska loo qaybiyaa qayb ka ah inta Soomaali ka soo heshiinayso all that kind of things is possible waxaan la fududaysanayo ama dawladda Soomaaliyeed ha fududaysato ama shacabka Soomaaliyeed ha fududaystaan waxa ay reer Somaliland qabteen waxay dhaawac weyn ku tahay haddaad runta rabtaan oo ka leexleexanaysaan waa dadka dawladda villa Soomaaliya fadhisay dhaawac weyn ku tahay mid ay ka soo kabsanaysana u malayn ma inay noqonayso runta markii loo hadlo aniga 2024 intaanay dhicin baan xataa barnaamijkan iyo dhibaatada intuusan dhicin baan ka digay oon ka hadlay oo aan sheegay inay fafaalaha soo socdaan welina laysma gaarin maan idinka hadda annaga asaysana waxaa inoo dhiman dacwooyinka ka badan ee Soomaaliya ku soo socda oo ah diyaaradahaas leexday in lagu soo dallici doono shidaalkii iyo dhaqaalihii ku baxay because of that trade 2024 waa dacwo noo soo socota waay kambanigii qalabaadka rakibaayay qalabkan iska yaala Baydhabo iyo Muqdisho iska yaala ee aan meelihii loogu talagalay la geynayninna waa dacwo ina sugaysa iyadana ugu dambeyntina ku soo afmeeray mowduucana caaway ciidanka booliiska gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo qaybta ka maamusha Puntland waxay gacanta ku soo dhigeen gabar magaceeda lagu sheegay Hodan Maxamuud oo ku eedeysan dilka gabar 14 jir oo ka shaqeynaysa gurigeeda gabadha dhimatay magaceeda waxa lagu sheegay Sabriin Seylaan meedka gabadha yar wuxuu yeelay dhakhtarka ee degmadaasi iyadoo jirkeeda gabadhaasi ay ka muuqdaan dhaawacyo aad u fara badan eedeysanada hadda waxay ku jirtaa gacanta booliiska waxaana ku socda baaritaan mobilkeeda waxa laga helay muuqaalkan hadda idin muuqda muuqaalkan waxa ka soo muuqday gabadha dilka geysatay iyo gabadha yareeda guri ka shaqeynaysa ee dilka loo geystay naaya marka sababta ka bilaabay sidii aan ku bilaabay sabay ahayd hay'ad naaya masaan u bilaabay masaan ka bilaabay hay'ad ka bilaabay soo saan uma bilaabay saa u bilaabay ugu dhaqso ay xagee ku joojiye haye soo dhaqtirtira aniga dabada ay xigti kuma dhihin yaa dabada ay xigti kuma dhihin tirtiraha saa umroojinaysa baan rabaa inaan arko saabiriin cadaalad bay rabtaa ilaahayna waa nagu fiirsanayaa adigana alla waa kugu fiirsanayaa 14 sano iyo 8 bilood bay jidhaa aabaheenna 13 sano mootaya hooyadeenna 2 sano ay jidha markay dhimatay guryaha ilmaha ku nool haddii arrinta aan wax laga qaban oo aan la dilin islaantinimadu sax ma ahan nimanka magaha raadinaya anagu ma go'aan baa ka gaaray sheerka gabadhu ka dhalatay mag inay qaataan go'aan bay ka gaareen wallaahi ma qaadan mayno wallaahi ma qaadan mayno oo haddii mag loo aadamad ay diyada u sheegaan wallaahi maalintii saabiriin dhimatay tii dhacday in dib looga sheekay